بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما أنت وحن شعلها إن أنكه الله موضوع عادي مهم وآه لما أنا خسائية ضدك الصوماليات مسلمين موضوع عمال عيسى وحال إلى ذا كوذ اللوليو ولقى ماما غشا كوذ اللوليو أيضا إليهي صومالية توصو اسكو تيرسداي hadbakiina taag daran taageera weligiin maxaa loola jeedaa kalimaadka kowda luuliyo macnaha ay ugu fadhido qofka muslimka ee Soomaaliga ihi waa maxay bal macnaha ugu fadhida xagga dhig kelimada aan doonayo inaan tilmaamo waxa weeye kowda luuliyo waxay kamid tahay maalmaha Ilaahay uu abuuray maalmuhu kala fadli badan maalmuhu kala wanaagsan maalmuhu sii kala xurmo badan 12 bilood ayuu Ilaahay sanadka ka dhigay subxaanahu waxa kamida 12 bilood oo quraanku uu ku sheegay inay xurmo leeyihiin waxa jira maalmaha qaarkood oo shariicadeena islaamku ay fadli ku tilmaantay iyo ajir dheeraada haddaan tusaale idinka siiyo sida aad u garataan waxa kamida yawm Arafa ومالين فضل بدن ومالين لا يقانو إن شاء الله يتبنى إسلام كنا أي سجالتهاي وحكم ذا يوم عاشوراء وبش محرم ليلة هذا كجرته وأنا مالين النبي موسى إلهي أوبد بالي قال كويناء إله لماذا شرته فرعون هانا أوهلاجي وحكم ذا هبينا ليلة القدر وهبينا أن لجرنين لص الله قص يا إلي كجرته بش رمضان طبعا كوجدا بيستر هذا إسلام أسبوع هدار إذا تلمامو وحكوجر تمالين جمعة ومالين إلهي آدم أبو ري ومالين جنة اللجليي ومالين لغس وصاري ومالين أي قيامة إحدونتو هدي أنقرني إني مالمو ساو كلفظ بديهين أو أسبوع لفتي سو كلفي عيه كلفظ بديه أو أي مالمو يبلوه كلفظ بديهين تلو كوذا لوليو دنبغا أي قشوا محي maxaa loogu khaas yeelay maalinta in dadku macsi badan ay sameeyaan meesha aan ka hadlayo hadii munaasabaadka oo dhan la isku soo daro shariicadeenu waxay ogashahay munaasabaad iyo xaflado gooni ah tusaalaha aan ka bixiyo goorta uu guur dhacayo qoysna la dhisayo guri cusubna la doonayo in adduunka lagu soo biiriyo in intii la farxo ummadda la iskugu keeno shariicadeena islaamku way banaysay muranka ma taagno hase yeeshee ma banaan tahay wax alla wixii la doono in la sameyn karo waxaan ognahay inay jawaabtu noqonayso maya wax walba qaab baa loo sameeyay mid labaad ciidaha day yimaadaan oo ciidul adha iyo ciidul fitr labada ciidood ee shariicadeenu ay qabtay axaadiisa nabiga quraankuna uu ka hadlay ما بنانتها واحد والباقيين لصميو جوابته ومايا حتى هدي واحد لصمينا ياي horta marka hore waa in loo eego sharcigu muxuu ka qabaa shariicadeenu maxay ka qabtaa munaasabad waaweyn ayaa islaamka soo maray tusaalaha baaqi ka siiyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadiisa maka ayaa lagu dhibay waa meesha ku dhashay waa meesha ku barbaaray waa meesha uu deganaa ومع ذلك دينتي سيب الله سو عرري مدينة أيو يمت دولة إسلامك أيا لغا ديساي ولما مقشين حفلتي دولة إسلامك الله آسي أيا حفل الله سمينيا ولما مقشين وحان دونا يا سؤال شاينا ويديو قف كستو عقل له قف كستو قراد له قف كستو وحقارنا إياه وحان دونا يا إنا ويديو ننكا قبانا إياه كوذا لوليو ee dadka isku yeeraya hadii ay dawladda noo dhisantay taariikhdana ay gashay ma waxay ka fadli badnayd dawladii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dawladii Abu Bakar iyo Umar wali ma maqasheen Abu Bakar ba madax noqday marka maanta waxa lagu aadinayaa munaasabadaas lagu aadinayaa oo ciid ba la dhigayaa wali ma maqasheen Umar ba madaxweyne noqday
weli ma maqasheen Uthman baa madaxweyne noqday kadibna munaasabada noocaas ah loo dhigaya weli ma maqasheen dadku haday diinta ay ka fogaadaan dadku hadii waxyiga ilaahiga ay ka fogaadaan waxa marar badan dhacda oo soo noqnoqota in la keeno waxaan diinta islaamka aan kamid ahayn waxaan doonayaa inaan tilmaamo waxaan rabaa inaan la hadlo gabadha aan dhalay iyo midda ila dhalatay iyo midda aan qabo midda ay dhashay hooyada ii ah habar yar iyo eedo goorta aad gurigaaga ka soo labisanayso xishmadii ama xishmadii iyo xijaabkii iyo xishoodkii iyo asturkii lagugu yaqaanay goorta aad bannaanka maraysay markaad soo dhigato adigoo doonaya waxaan ku faraxsanahay kowda luuliyo kadibna laguu keeno oo laguu soo ijaaro rag la yidhi way heesaan ayadoo oon la garanin shareecadu waxay heesta ay ka qabto kadibna la isku soo daro rag iyo dumar kala duwan gabdho qurqurux badan iyo wiilal dhaadheer goorta la isku soo daro meel la iskugu keeno carafta iyo unsiga iyo barfuunka iyo cadarka iyo idgoonka marka laga eego dhinaca sanka marka laga eego dhinaca indhaha marka laga eego qof aad moodo gabadh yarood moodo hooyo yarood moodo inay caawa ninkeedii xalaasha ahaa guriga loo gelinayo wiilal yar yara oo dhaxda soo dhuuqsaday tay yar oo na soo xidhay doonaya oo kiyaalo madowna soo qaatay doonaya inay gabdhaha yar yar ka daawadaan oo fiirsadaan kadibna la daaro quraanu shaytaan arinta ayada maxaa sawiranaysaa maxay kula tahay baad u malaynaysaa waxaan doonayaa arintaas ayada ah inaad fikirkeeda iyo aragtideeda iyo aqliyad intaad ku eegto aad ka fikirta ayaan doonayaa adigoo ka fikiray jawaab sax haysa aan ku soo wada noqono xalaqada labaad biidni illaahi subxaanahu wa tacaala